ما شاء الله شيخ حسن عدكي ضرب إلى يرى دقيقة ما يعمل إذا حتى جاوبني ما أقال أنا بداخل codkayga may maqlaysaan ما شاء الله تكن هاي حتى أوكي ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka waxaan ku bilaabanayaa duco oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanayno in uu naga ilaaliyo sharta xanuunka socda ee coronavirus oo khaasatan fara kulul ku haya waddankan maraykanka iyo waddamo badan oo yurub iyo adduunka. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in xanuunkaasi shartiisa uu naga qabto oo annaga iyo ummadoo dhan iyo caalamka oo dhan qofka muslimka ah markas isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii raacayo diintana ay tahay diinu raxma diinu raxma. ilahay qur-aanka wuxuu ku lehy wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. diinta islaamka waa diin loo naxariisanayo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala oo dhan. makhluuqaadkaasi ma aha insaanka oo keliya, wax walboo ilaahay abuuray, xoolaha soo galayo iyo makhluuq kastoo ilaahay abuuray. marka ilaahay subxaana wa tacaala maadaama aan ka mid nahay makhluuqaadkiisa uu abuuray meel kasta ay joogaan, waxaan ilaahay u weydiinaynaa xanuunkaasi ilaahay inuu ka hayo. intaas kadib waxaan gudagalaynaa casharkeenna. su-aalo badanaa ii yimid. su-aalahaasi oo igu dambaysay qof weydiinayay, qof rabay inay guursato isla markaasna muddo dhowr sannadood ah guurkii laga xijaabay iyadoo tuhmayso sixir. ayaa su-aalahan badan markay yimaadeen ayaan waxaan go-aan ku gaaray, walaalo badan ay weydiinayaan in mas'alada sixirka aan ku sameeyo daraaso oo markaasi aan la qaybsado walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan, khaasatan qolka umuhaad alkhayr oo hadda barnaamijku ka socdo, iyo facebookgayga imaam doctor xasan jaamici ku qoran, qofkii ka fiirsanaya live oo hadda dad badan ay ku jiraan. dhammaantooda waxaan go-aan ku gaaray ammaanada cilmiga inaan gaarsiiyo walaalaha soomaalida oo afkooda aan ku gaarsiiyo. intaas kadib ano isku daya inaan aada usoo kookoobo. haddii oo waqti soo baxo markaasi su-aalaha aan furo hadduu ilaahay yidhaahdo. marka hore waxaan ku bilaabayaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim, duco. alxamdu lilah وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا ربي زدنا علما. مركز قفك مؤمن وحال الربا إنه ويديسته إلهي سبحانه وتعالى وحي أقون وهايسته إلهي إنه أكرديه. أقون تنوحا أقشرف بضان أقون الدين. hadda intiina i dhegaysanayo, dhegaysiga aad dhegaysanaysaan oo keliya malaa'ig ayaa idiin imaanayso. malaa'igtaasi agtiinay fariisanaysaa, markaasay ducaynaysaa. riwaayad ayaa waxay leedahay malaa'igta waxay ku celcelinaysaa allaahuma akfir lahum, allaahuma arxamhum, ilaahu kuwaan u dembi dhaaf, ilaahu kuwaan u naxariiso. waa kuwee waaye? kuwa dhegaysanaya waa khayrka. xadiis ayaana dhahaya xafathum almalaa'ika. markii diinta la baranayo malaa'ig ayaa ku wareegsanayso dadka diinta baranayo. malaa'ig aad nala joogto, alxamdulilah dhaha. malaa'igtaas iskama fadhiso, waa idin ducaynaysaa. waa ducada sheekh xasan maa, waa duco malaa'ig waay. labay idinkugu ducaynaysaa. kow, wixii dembi iyo khalad aad samayseen ilaahay inuu idinka dhaafo, iyaga aamiin isku dhahayo. waxay kaloo ku ducaynayaan sharafta uu leeyahay waa taalib alcilm iyo karaamada ilaahay uu siiyey qofka cilmiga doonayo oo cilmiga raadinayo. marka intiina dhegaysanayso iyo intiina daawanayso, bishaaraan rabaa inaan idiin hormariya oo ah malaa'igtaa idiin ducaynaysa si toos ah. waxay leedahay ilaahow kuwan khayr ka dhegaysanayo oo cilmiga baranayo,
ilaahu dembigii ugu dhaaf. marka dembiyaa naga buuxo, waxaan rabnaa dembi dhaaf ilaahay. horta taas waa bishaaro. ilaahayna malaa'igta kuma soo celiyo ducada markay is aaminsadaan oo aamiin ay dhahaan, ilaahay wuuna cafinayaa. waxaan ka tegaynaa jalsadan annagoo maqfuuruun ah, annagoo naloo dembi dhaafay. ducada labaad malaa'igtay ku ducaynaysa waxa waaye oo bishaaro kaloo weyn oo ah allahuma akfir lahum, waxaa ku xigta allahuma arxamhum, ilaahu u naxariiso. naxariis waxa waaye qofkii muraad lahow ku farx arrinta. naxariis waxa waaye ilaahu waxay rabaan ugu naxariiso. qofkii guri doon ama guurdoon ah, ilaahu ugu naxariiso. hadda u guuri waa micnaheeda dad khayr badan, ama hadday gabar tahayna wiil khayr badan, haddii wiil guurdoon uu ku jiroona dhegaysanayan gabar khayr badan. marka malaa'igtaa kuu ducaynaysa. marka waxaa lagaa rabaa adiga, marka maxaa lagaa rabaa in aamiinta aad ka qayb gasho oo aad dhahdo ilaahu ducadan malaa'igta ilaahu noo aqbal. intaasi kadib oo ducadaas aan idinkugu bishaareeyo, waxaan ku ducaysanaynaa oo kale cilmiga aan akhrinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyo sirtiisa, maxaa ku qarsoon, xikam maxaa ku jira, iyo inaan fahamno axkaamtiisa. marka darsigeen maanta waxa waaye xanuunkan oo sixirka dad badan ay kasoo dacwoodeen, ama dad badan ay weydiinayaan dawadiisa. waxaan rabaa inaan idin sheego, dhakhtarka isbitaalada haddaa u tagta ma daweyn karo. dadka dhakhaatiirta u tegayo, dhakhaatiirta gaala ha ahaadeen ama muslimiin ha ahaadeen, waxba kama qaban karaan. dawadiisaa nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeeda waxaan ku hormarayaa marka hore su-aal ah, dadka sixirka maxay ka aaminsan yihiin? dadka 3 nooca loo qeybiyaa. qaar sixirka inkiray oo diiday oo dhaheen sixir dhan ma jiro, waa been. 2 qaar cagsigooda ah oo aaminay inuu sixir jiro, way aamineen laakiin way isu dhiibeen. oo dadka saaxiriinta ah oo kitaab gaablooyaasha ah ee wax sixira oo shayaadiinta ku shaqaysata, dadkaasi isku dhiibeen. iyagana ama waa gaalo hadday aaminaan ruuxa saaxirka ah in awood la mida awoodda ilaahay uu leeyahay, hadday aaminaan waa gaalo. waa sheegi doonaa xadiiska. haddii laakiin ay u tagaan oo keliya iyagoo su-aalo weydiinayo, ma gaaloobeen mise ma gaaloobin, waa u imaanaynaa. qolo saddexaadaa jiro marka, nooc saddexaad oo dadka ka mid ah. nooca saddexaad oo dadka ka mid ah waxa waaye qolo kuwa inkiray ma ahan, way rumeeyeen sixir kugu jiraa. ilaaha qur-aanka ku sheegay, ilaaha ku sheegay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan uu ku sheegay oo aayadaha suuratu muusa lagaga hadlayo ka mid ah. laakiin hal aayad aan soo qaadanayna tusaale ahaan, haddii waqtiga noo saamaxna aayado kale waa soo qaadan doonaa. aayadda ilaahay fi suurati albaqara oo ilaahay uu ku dhahayo subxaanahu wa tacaala, wamaa kafara sulaymaan. nebi sulaymaan qisadiisa laga sheekeynayay. marka nebi sulaymaan ma gaaloobin, walaakina shayaatiina kafaruu. shayaadiintii ayaa gaalowday. ilaahay wuu sheegay waxay sameeyaan shayaadiinta, ama howlahooda waxaa ka mid ah yucallimuuna annaasa sixr, dadkay sixir barayaan. marka halkan waxaan fahamnay macalinka dadka sixirka bara inuu shaydaan yahay. shaydaan wuxuu dadka barana waa shar. marka shaydaanka marka walaakina shayaatiina, marka ilaahay uu leeyahay shayaadiintaa gaalowday, sababtiina ilaahay uu daba dhigay oo ah dadkay sixir barayaan dartooday ku gaaloobeen. kan sixirka baranaya laftigiisa wuu gaaloobayaa. wamaa yucallimaana min axadin, markii haaruud iyo maaruud laga sheekeynayay, muxaadaro gooniyaan ka dhigi doonaa haaruud iyo maaruud qisadooda. laakiin markii laga sheekeynayo wamaa yucallimaana min axadin, qof kasto ay barayaan sixirka markay u yimaadaan, qof ma barayaan. wuxuu leeyahay waxay qofkaas ku dhahayaan ha fidnoobin, ha kufrinin. idan marka culummada waxay dhaheen barashada sixirka waa gaalnimo. kan wax baraayo waa gaal, kan baranayo wuu ku gaaloobayaa. kan u imaanayo marka oo qof saaxira inuu u tago, ama wuxuu rabaa dad inuu sixro, ama wuxuu rabaa qofka saaxirkuu rumeeyey wuxuu rabaa inuu ogaado. kasoo qaad oo kale waxaa lii dad madaxa waxay u tagaan dadkan
oo sawaaxirta ah ama sixroolayaasha ah ama kitaab gaablooyaasha waa nooc sixirka ka mid a ayay u tagaan markaasay weydiiyaan ma ku soo baxayaa doorashada haddaan galo qarash inaan iska bixiyo ma raba intaasaan ku siinaya saasuu leeyahay kaas ficilkaas sameynaya oo gurigiisi inuu ka baxo qof kaahin ah ama curaaf ah ama kitaab gaabloo u taga waa gaaloobay culummada laakiin waxay dhaheen xadiiskaasi markay fasirayeen xadiis waxaa jiro oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa qofkii u yimaada curaafan ama caraafan waa loo akhriyey qofkii saaxirka ahaa qofkii u yimaado oo fasa'alahu can shayin oo wax uu weydiiyo su-aal maxaa ka mid a su-aashaas doorashaan rabaa inaan galo doorashadaasi waxaan rabaa inaan ogaado ku soo baxaya mise kuma soo baxayo ama wuxuu u tegey caraafkiia u tegey wuxuu yidhi gabar heblaayay iga haysaa inaan guursadaan rabaa ma sharay ii tahay mise khayray ii tahay fiir wuxuu weydiinaya waa wuxuu ilaahay og yahay wamaa yaclamu algayb ila allah wax qeybka og oo qarsoon oo noloshaada fiyujirkiisa og ma lahan aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala awooddii ilaahay ayaa wuxuu gacanta u geliyey kuma qofka saaxirka ah marka ilaahay awooddiisu wuxuu barbardhigay awoodda qofka saaxirka ah intaasuu qofka shirki ku galay marka xadiiska wuxuu leeyahay man ataa caraafan qofkii u yimaado qof kitaab gaabloo ah caraaf ah saaxir ah oo su-aal weydiiya xadiiskan wuxuu leeyahay lam tuqbal lahu salaatun 40 leylatan 40 maalmood salaad lagama aqbalayo 40 maalmood salaad lagama aqbalayo xadiis kale ayaa jira oo ah qofkii u yimaada caraaf ama kaahin fasadaqahu oo rumaysta wuxuu sheego maalan wuxuu dhahay waa u tagtay waxaa dhahday doorashadaan rabaa inaan galo madaxweyneaan rabaa inaan noqdo ama xildhibaanaan rabaa inaan noqdo oo ergadan ay dadka soo sharxayaan rabaa inaan ka mid noqdo ma helaya mase ma helayo oo uu yiraahdo qofkii saaxirka ilen lacag u qaatay wuxuu dhahayaa waa helaysaa laakiin waa inaan waxaan inaan samayso waay oo qofkii uu baxo oo uu rumaysto xadiiska fiir wuxuu dhahay fasadaqahu bima yaquulu qofkii saaxirka ahaa wuxuu dhahay ama kaahinka ahaa ama kitaab gaablooga ahaa wuxuu dhahay qofkii rumaysta qofkaas fiiri faqad kafara bima anzala allahu cala muxamed sala allahu calayhi wasalam rawahu axmed imaam albani wuxuu yihi xadiiskan waa saxiix qofkaasi waa gaaloobay wuxuu ku gaaloobay nebi maxamed wixii lagu soo dejiyo islaamka ahaa ee qur'aankii iyo sunnadiisii wuu ku gaaloobay marka waa maxay marka qofka wuxuu qaaday 3 tallaabo 1 wuxuu u tegey saaxirkii 2 su-aaluu weydiiyey 3 wuxuu saaxirku u sheegay jawaabtii wuu rumeeyey qofkaas waa gaaloobay ka waran qofkii u taga laakiin aan rumaysan wuu u tegey laakiin hadduu u tago oo keliya oo laakiin aan rumaysan culummada waxay dhaheen 40 maalmood salaadooda lagama aqbalayo xadiiskaasina soo dariishada nebiga uu dhahayo qofkii u taga keliya xadiisku wax kale ma dhihin wuxuu dhahay qofkii u taga okay xadiiska fiir wuxuu dhahayo oo kusoo celinaya mar kale wuxuu leeyahay man ataa curaafan fasalahu can shayin lam tuqbal xadiiska intaas keliya u dhahaya waa rawaahu muslim hadduu ha rumaysta ama yaysan u rumaysan u tegitaanka keliya qofka saaxirka oo loo tago oo aad u tagto gurigiisii ama lacag bixi ama ha bixin u tegitaankaasi 40 maalmood salaad lagama aqbalayo imaam sheekh ibn cuthaymiin raximahullah wuxuu yiri halkan daahir alxadiis waxaa laga qaadanayaa mujarad su'aaluhu su-aal uu weydiiyey keliya markuu u tago su-aashaas uu weydiiyey keliya ayaa wuxuu yiri yuujab cadam waxay keenaysaa inaan laga aqbal qubuulu salaatihi 40 yowman 40 maalmood qofkaasi kuwa madaxa la sheegaya hadda oo niman sixriyoolaal ah u tegey wixii xaqiiqa ilaaha og ninkuu doona ha ahaado
mar qofka hadduu kitaab gaabloo yahay saaxir uu yahay caraaf uu yahay aa u tagto tegitaankaasi salaadada 40 maalmood lama aqbalayo haddaa rumaysato waa ku gaalooday qofkii ku gaalooba maxaa lagu sameynaa marka qofka gaalooba culummadu waxay dhaheen qofkii gaalooba ilin markuu gaaloobay xadiis oo sariix ah oo rasuulku uu dhahayo hala dilo oo saxiix ah culummadu waxay dhaheen lama hayo laakiin waxaa xadiis sax aha la hayaa oo ah mar hadduu gaaloobay oo diintu ku baxay murtad uu noqday qofka markuu murtad noqdona xadiis waxaa jira oo saxiix ah oo dhahaya man badala diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa badasha oo shirki toos u gala ama qofkii diintiisa badasha waxaa kaloo loola jeedaa in la yimaado ficil diintu uu kaga baxayo qofkaas murtad markuu noqdo waa la dilayaa marka waa la dilayaa darb sayf ayaa lagu dilayaa arrintaasi ficil ahaan waxaa u sameeyey sayidna cumar wuxuu amray in la dilo sixroolayaasha magaalada joogta isagoo soo daliishanaya xadiiskaasi iyo inay gaari yihiinna aayado qur'aan ayaaba sheegtayba aayadihii haddaan soo akrinay marka waxaa la yidhi maalin keliya riwaayadda waxay leedahay maalin keliya 7 qof oo saaxiriin aha la dilay oo qoorta laga jaray riwaayad kale waxay leedahay 3 maalinaa la dilay maalin keliya laakiin dadka la dilay way badnaayeen sixroolayaasha waa la ugaarsanaya markaas marka waxay dhahan culummada marka la dilaayo sixroolayaasha toobad inay toobad keenaan ma la weydiinaa mise lama weydiina waa la weydiinaa sababta qof walba markuu dembi galo hadda taariku salaadka oo kale hore lagama dilaayo waxaa markii dowlad islaam ay jirto markuu diido oo salaada u tukan waayo waa lasoo qabanayaa hadduu toobad keeno markii la xiro oo ilaahay uu u toobad keeno waa lasoo daynayaa markaas kadib wuxuu daa'imayaa salaadiisa waxyaalaha dowladda islaamka ee mas-uulka tahay ka mid tahay inay ka warhayso muslimiinta sababtoo ah salaadaha waxyaalaha muuqdoo dhan oo insaanka uu sameynayo dowladda waxaa waajib ku ah inay fuliso muslimiinta inay ku dhaqmaan intaasi iyadoo kooban markaasi kadib waxaa imaanayso qiso waxaa jirto marka dadku waa 3daasaan dhahay kuwa inkare sixirka inuu jiro oo maaragtay oo culummo qaarkooda waxay yidhaahdeen waa gaalo hadday kas u inkiraan qofkii dhaho sixir ma jiro wuxuu inkiray aayad qur'aan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sida aayaddii haddaan akhrinay fi suurati albaqara iyo aayado badan oo qur'aanka ka mid ah iyo nebiga qisadiisii calayhi salaatu wasalaam nebiga waa la sixray culummadiidii way jirtaa laakiin xadiiska ka hadlaya rasuulka in la sixray haddaan ka sheekeynaya waa xadiis saxiix ah bukhaari iyo muslim ay ku wada qoran yihiin iyo sunanta qaar kamida iyagana way wariyeen marka waa soo ururinayaa qisadaasi iyadana waxay caddeynaysaa sixirka inuu jiro marka qofkii inkira calaa cilmin cilmi ku inkira oo dhaho anaa og sixir waxba kama jiro qofkaas waa gaaloobay 2 waxaa kaloo gaaloobay qofkii sixirka rumeeya inuu jiro isla markaasna rumeeya ruuxa wax sixrayo ama saaxirka ah awoodda ilaahay lamida inuu leeyahay isagana wuu gaaloobay sababtoo ah aayaddii hadda aan soo akrinaynay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga sheekeynayo qisadii nebi sulaymaan aayaddaasi si caddaana waxay u leedahay wamaa kafara sulaymaan ma gaaloobin micnaheedu waxa waye sulaymaan sixir ma sameynin saaxir ma ahayn laakiin walaakina shayaatiina kafaruu shayaadiinta ayaa gaalooday sababtaa iyagaa sixir ka sameynaya iyagaa dadka baraya yucallimuuna annaasa sixr ilahi wuxuu leeyahay dadkay sixirka barayaan marka barashada sixirka inay gaalnimo tahay halkaas culummada way qaateen culummada imaam nawowi aimada waxay dhaheen wax isku khilaafay ma lahan in barashada 3 inay xaraam tahay barashada sixirka waa xaraam qofka inuu ku shaqaysto sixirka waa xaraam qofka qof kale inuu sixro iyadana waa xaraam barashadi 2 inuu shaqo ka dhigto shaqo maalmeed dadaa jira hadda xaafadan la yidhaahdo siidar oo sixir sameeya iyo dad u tago oo lacag badan bixiyo weli in qof loo sixro waa ka hadli doonaa hadduu waqtigu noo saamax taana waa xaraam in qof la sixro
nooc doona ha ahaada sixirkaasi inaad dhibto waa xaraam inaad qof ka joojiso qof kale oo cilaaqala leh oo sixir aad u isticmaasho iyadana waa xaraam dadka qaarkooda waxay leeyihiin sixir fiicanaa jiro maxaa sixirkaasi hooyaa wiilkeeda hooyo ayaa wiilkeeda sixirtay waxaa lagu qabsaday maxaa u sixirtay waxay dhahday wuxuu iga jeclaaday xaaskiisii marka waxaan rabaa ani inuu u jeclaado oo xaaskiisa uu naco marka waxaan u sixrayaa baarinimo inuu baari ii noqdo culummada waxay dhaheen waa xaraam sababtaa ficilka sixirka xaraama in loo tago qofka saaxirka xaraama in shaqo uu kuu qabtaa xaraama marka waxaasoo dhan waa wada xaraam marka iyadoo kooban intaas marka sixirka in lasoo gato ma banaanta sida dadka xaafadan siidar ayaa dad waxaa laga sheegaa kuwa suudaniyiina joogaan sixir ah maaragta sixroolayaal ah marka kuwa dadaa taga oo soo gata in la soo gato ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanku ku sheegay qofkii qofka saaxirka u tago oo lacag siiya su macluumaadkii usoo gato ama shaqadaasi usoo gato walaqad calimuu liman ishtaraahu maaluhu fi laakhira min khalaaq aakhiro qofkaasi nasiib ma lahan uu jano ku gelaayo waayo waa ahlu naar wala bi'sa maa sharuu bihi anfusahum ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahay waxaa baas lahaaday oo shar ah waxa ay soo gateen low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen dhibkiisa iyo aakhiro dhib adduun iyo dhib aakhiro marka qisada nabiga calay isalaatu wasalaam aan soo ururiyo nabiga calay isalaatu wasalaam culamo qaar diidiyaa jirto in la sixray waxayna u diidayaan waxay leeyihiin nabiga nebi u ahaa macsuum waayo macsuum waxa waaye rasuulka sharna ma sameynayo macsina ma sameynayo waxay leeyihiin isla markaasna rasuulka wax dhibayo laguma samayn karo calayhi isalaatu wasalaam waa laga ilaaliyey hadalkaas sax ma ahan rasuulka dhibaatooyin badanaa ku dhacay oo jirka ah dagaalka uxud waa la daqray maaragtay marka dhibaa gaaray dhaawacaa gaaray xanuunaa gaaray marka culammadu waxay dhaheen xanuunka muuqda iyo xanuunka kaleba nebiga wuu ku dhici karaa ka bashar xadiiskan waa xadiis saxiix ah qisada iyadoo kooban waxay ahayd marka dad diiday way jiraan culamo diiday laakiin waxaa ka badan culummada jamhuurka ah oo aaminsan nabiga calay isalaatu wasalaam in la sixray aayadda suuratulfalaq ku jirto waxaan ujeedaa suuratulfalaq iyo suuratu nnaas labadaas suuradood oo aan baran doono maanta iyadoo kooban ayaa loo soo dejiyey nabiga calay slam in sixirka laga qaado axaadiis bukhaari ah iyo muslim iyo axaadiis kale haddii isku soo ururiyo nabiga calay slam gurigiisa wiilaa ka shaqayn jiray wiil oo yahuudi ah ka shaqayn jiray xadiiskan waxaan ula jeedaa waxaa kaloo jira khilaaf ka taagan labadan suuradood suuratulfalaq iyo suuratu nnaas makemay kusoo degeen mise madiinay kusoo degeen khilaafkaas waxaa lagu xaliyey laba arrin kow waxaa lagu xaliyey haddaa aragtay iyadoo maka ku qoran sida kutubta badankooda ku qoran yihiin waxaa la yidhi laba jeer ay soo degtay maktana ilaahi subxana wataala labada suuradood uu kusoo dejiyey haddana rasuulka markii la sixray madiino ilaahay subxaana wa tacaala mar labaaduu soo dejiyey oo jibriil ayaa rasuulka calay isalaatu wasalaam ayaa wuxuu baray nabiga calay isalaatu wasalaam dawadii sixirka oo from qur-aanka oo maanta aan baran doono maanta waxaan rabaa dadka inaan ugu bishaareeyo haddaad qur-aanka kariimka akrin karto inaad qof u tagto ma u baahnid adaa sixirka iska daweyn karo dawada sixirkana oo culummada sheegtayna waa soo ururinaya taas waa bishaaro weyn lacag ma iska bixinaysid cid uma tegaysid sheekha caalimka ah wuu kugu tufi karaa ruqyi wuu samayn karaa lacag wuu ku qaadan karaa way u banaan tahay faataxa lacagaa lagu qaatay faataxada way ka mid tahay waxyaalaha maaragta la isticmaalo dawo ahaan oo loo isticmaalo sixirka markaydaan gaarayna laakiin aan qisada marka hore sharaxno oo usoo laabanaynaa dawada nabiga calay slam wiilkaasi yahuudiga u shaqaynayay ayaa waxaa dhacday wiilka yahuudiga ahaa qolo kaleoo yahuud ah ile nabiga xaasida lagu ahaa sixirka badanaan waxaana isticmaala dadka xaasidka ah
dadka dhibayo, dadka aan wanaagga jeclayn. waxaa dhacday markaasi nimankan yuhuudda maadaama nebiga aysan jeclayn waxay go-aan ku gaareen nebiga inay sixiraan. laakiin culummada ka hadlaysa sixirka waxay dhaheen nebiga waa la sixray, isla markaana ilaahay wuu daweeyey oo jibriila ku tufay, 2 suuradood lagu soo dejiyey, waa baran doonaa. ruqyana sharciyana waa baran doonaa, oo laysku tufo markii sixir uu kugu dhaco. calaamadaha sixirkana waa sheegi doonaa qaar ka mid ah oo haddaa isku aragto culummada ay yidhaahdeen qofkaasi waa sixran yahay. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam calaamadu isku arkay qaar ka mid ah haddaa isku aragto waad fahmi kartaa inaad sixran tahay. taana hadda qisada haddaan ku dhex sheegayna hadduu ilaah yidhaahdo. yuhuudda iyaga ma jeclayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam 2 sababba. kow, waxay filayeen ama iyaga waxay iska dhaadhacsiiyeen maadaama qabiilistiyaal ay ahaayeen ruuxa ugu dambeeya aakhiru zamaanka soo baxayo nebiga inuu noqon doono ruux yahuudi ah. waa kow. ma noqon marka taas way ka caroodeen marka qabyaalad darteeda nebiga saas waa qofka markay qabyaalad ay ka buuxdo xaqa ma arkayo. wax xaq ah uu ka tegayaa qabyaalad feeri qurunka iyo meesha qofka ay gaarsiinaysa. ibliis maxaa gaaraysiiyey? anaa kana sab fiican uu dhahay. isaga dhoobaa laga abuuray, ana naara laga abuuray. marka 2 asal oo kala duwan aan nahay. marka anaa ka fiican, marka ruux aan ka fiicnahay uma hogaansamayo, ma u rukuucayo, wuu diiday. marka qofka inuu u hogaansamo. lidaalika rasuulka alay slam markuu dhahayay annaasu sawaasiya, dadku waa isku wada mid, cid ka saraysa ma laha. waxaa la rabaa beri inaad ogolaato qofkaas inuu madax kuu noqdo, qofkaas inuu ogolaado adna inaad madax u noqoto. ilaa cid ka saraysa ma laha. xadiiska wuxuu leeyahay carab cajam kama sareeyo, cajam carab kama sameeyo. cajam waxaa la yidhahdaa ruux aan carabka ahayn. cid ka saraysa ma laha ilaa bitaqwa allah. waxaa lagu kala sareeya oo keliya cabsida ilaahay. ina akramakum cinda allahi atqaakum waa aayad qur'aan. waxaa idinku karaama iyo sharaf badan ruuxa taqwada ka buuxda qalbigiisa, cabsi ilaahay oo ilaahay u dhow. ruuxba ruuxa ilaahay uu kaga dhow yahay ilaahay waa ka jecel yahay. u dhowaanshaha ilaahayna waa cibaado. lacag ma ahan, madaxnimo ma ahan, qabiil ma ahan, waa cibaado oo keliya. ruuxu ka qur'aan akhris badan yahay, ka dikri akhris badan yahay, ka salaad badan yahay, ka sadaqo badan yahay, ilaah wuu u dhowaanayaa. moor ilaahay aad u dhowaato ilaahay subxaana wa tacala waa ku jeclaanaya. ilahay markuu ku jeclaadana ooliyadiisaa noqonaysaa. marka nebiga ilaahay uu jeclaa waa la imtixaan. ninkii yaraa yahuudiga ahaa waxaa la weydiistay inuu soo ururiyo tinta nebiga iyo shanladii ka jabtay shanladiisi. intaasay yuhuud marka waxaa ka dambeeyay nin yidhahdo Labiid ibn al-Acsam. ninkaasi gabdhihiisa sixroolayaal ahaa. gabdhihiisi uu hooshaan u dhibay. marka waxay sameeyeen 11 gunnadood ayay sameeyeen. 11kaasi gunnadood waxaa lagu tuuray ceelasha ka mid ah. meeshaa lagu qariyay dhagax hoostiisa. sixirka meeshaasaa la geliyay. nebiga caaisha u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu wax dareemayo. wuxuu dhahay waxbaan dareemayaa. marka inaan qabtay ma qabtay saasuu dhihi jiray. caaisha waxay dhihi jirtay maya ma aadan qaban, aday kula tahay ma ahayn. waxaa la dareensiinaa uu dhahay. ogow sixirka waxaa waaye indhaha iyo maskaxda qofka uu raad ku yeelanayaa. laakiin qur-aanka wuxuu leeyahay wamaa hum bidaariina bihi. dadka tanna aayaddan waa bishaaro fi suurat albaqara. isla aayaddii hadda aytaan akrinaynay qayb ka mid ah. wamaa hum bidaariina bihi ilaa biidni illah. sixir wax uu dad ka qaadi kara ma lahan ilaahay inuu idmo maahin. ilahay markuu idmaayo addoonka lagu imtixaanaya. addoonkus ilahay uu ku imtixaanaya. marka qofka sixroolaha laakiin muxuu raad ku yeelanayaa indhaha qofka. indha sarcaadku waxay dhahaan oo kale waaye iyo maskaxda qofka. waa tan qisadii nebi muuse ilaahay qur'aanka aayad qur'aan waxay leedahay yukhayilu ilayhi manaha waxa waaye nebi muuse laga hadlaya. marka waxaa maskaxdiisa la tusiyey waa khiyaal waa marka xaqiiqa ma ah. waxaa la tusiyey waxaan xaqiiqa ahayn oo maxaa waaye xargihii annaha tascaa
in abeeso oo kale abeesaa u muuqatay masas ayaa u muuqday markaas waa tan uu cabsaday uu orday oo ilaahay uu qabtay oo la soo celiyey oo layidhi kaali soo noqo ha ka cararin xaqiiqa ma aha marka laakiin wixii hore waa la sixray nebi muuse sidaasoo kale nebi maxamed alai salaam waa la sixray kaannahu facal isagoo wax sameeyey walam yafcal mana uusan samaynin ilaa iyadoo kooban markuu xanuunsaday ayaa riyo u arkay marka riyada uu arkay waxay ahayd isagoo jiifa oo markaasi riwaayadna waxay leedahay laba nin riwaayadkan waxay leedahay laba malag jibriil calayhi salaam oo xagga madaxa dhinaciisa fadhiya xagga lugahan waxaa fadhiyay mikaa'iil markaas waxay isweydiinayaan su-aal ninkaa maxaa hayo waa rasuulka calai salaam midaa wuxuu ku jawaabay dib aa hayo dib waxaan la yidhaahdo caafimaadka dib kelmaddaasi dib asal ahaan waa sixir aa hayo markaasaa wuxuu yidhi maxaa yaa sixray kan kalea ka jawaabay labiid ibn alacsam ayaa sixray waxaa lagu qariyey sixirkaasi ceelkii uu sheegay jibriil riwaayad kalen waxay leedahay jibriil nabiga alay slam markaas kadib marka labadan suuradood aa dawo u ah sixirkana burinayo waa suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas oo rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wassalaam labadaas suuradood haddaad akriso waxay ka kooban yihiin 5 aayadood alfalaq iyo 6 aayadood qul acuudu birabbi lfalaq min shari ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وشان أيضا سورة كلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لح آيات شن آيات مركز قدرت وكوي طبعا قلدي السحرولياشا أها واللبيد وهو جامنا وحي سمايان تمه النبي iyo shanadiisa waxay ku akhriyeen wixii shaydaan uu akhriyay markaasay ku sameeyeen 11 gunnadood oo dhagaxa ceelkaas hoos la geliyay rasuulku markuu soo kacay riyada ambiyada waa waxyi waa tilmaan wuxuu amray sayyidina cali iyo asxaabta qaar ka mid ah zubayr ayaa ka mid ah la yiri inay baxaan oo ceelkaasi ay tagaan ina ka soo faagaan dhagaxa meesha ugu hooseyso waxa ku qarsoon waxay ka soo faariyeen markaasi sixir oo leh 11 gunnadood oo rasuulka tintiisii iyo shanladiisii ah riwaayad kale waxay leedahay waa lagu aasay macnaheed waxaa laga markii la soo bixi in lagu aasay markaasi nabiga markuu akhriyey 11 aayadood oo labadii suuradood lagu soo dejiyey isagoo wuxuu la mid noqday sida geedka ku xirnaa oo la sii daayo oo kale oo firfircoonaaday nashad caadi u noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasi waxaa laga qaadanayaa marka 1 sixirka rasuulka inuu dhab yahay 2 bini aadan siduu u xanuunsaday rasuulku inuu u xanuunsaday oo sixirka xanuunada inuu ka mid yahay 3 inuu sixirka dawo leeyahay 4 waxaa laga faa'iidaysanayaa wax sixraa inay yihiin xaasidiin aan ogoleyn qof inuu qabto shaqo fiican rasuulkay raba inay ka joojiyaan maaragtay khayrka iyo wuxuu qabanayay iyo waxay dhaheen culummada sixirkaasi oo la sixray nabiga calayhi salaatu wasalaam raad kuma yeelanaynin ama raad kuma yeelanayo iblaaqu risaalada sababtoo qaybtaas rasuulka macsuum ayuu ka yahay nabiga wixii ilaahay u soo dhiibay inuu dadka gaarsiiyo qaabku uu rabo inuu u gaarsiiyo cid raad ku yeelan karta ma laha intaas markaan kaga baxno waxaan galaynaa markaasi maxaa waaye calaamadaha qofka inuu sixriyan yahay culummada calaamado ayay sheegeen calaamadahaasi qofka hadduu isku arko waxay yidhaahdeen acraad sixir waa ama almasna way dhaheen jinni ama waxay dhaheen il aa ku dhacday waa maxay calaamadahaasi marka calaamadaha sixirka waa madax xanuun oo qofka madax xanuun oo gurguuraya waay gurguuraya maxaa loola jeedaa madaxa marra dhinacana xanuunayo mar dhex baa la xanuunayo mar geesaha xanuunayo mar xagga dambe madax xanuunka gurguuraya waa 1
waxaa kaloo lagu garanaya ay dhaheen qofka wejigiisa oo weji boor oo kale noqda, manaa weji booroobay oo ah weji dhammaaday oo kale ayaa qofka wejigiisa uu noqonaya. waxaa kaloo kamid calaamadaha qofka oo dhidid badan, aada u dhididaya, qofka dhidid badan ayaa ka soconaya iyadoo kooban. waxaa kamid a calaamadaha qofka oo kaadi badan isku arko habeen iyo maalin. waxaa kamid a calaamadaha qofka oo raashinka ka go-a, manaa qofka raashinka maba jecla inuu raashin cuno, raashinku dhan uu ka go-aya. calaamadaha waxaa kamid ah qofka oo dareema maaragtay cidiyaha qabow ka dareema ama kuleel gaar ah ka dareema. waxaa kamid ah calaamadaha qofka oo dareema addayq fi sadr, manaa qof qalbi maaragtay ciriiri dareema, oo maaragtay oo qalbigiisa ama isagoo dhan xirxiran oo maaragtay ciriiri dareema iyadoo kooban. waxaa kaloo kamid ah calaamadaha qofka oo hurdi yaraan dareema mararka qaarkooda. waxaa kaloo kamid ah calaamadaha qofka oo caro badan, xanaaq. waxaa kamid ah oo geyri tabiici ah, xanaaq aada u fara badan oo oon ahayn xanaaqa caadiga ah oo qofka shay khalad la sameeyey ku caroonayo, wax walbuu ka caroonaya, wuu iska xanaaqaya. iyo cabsi badan, qofka oo welwel iyo cabsi badan ku abuura, wax walbuu ka cabsanaya. wuxuu ka cabsanaya maalan hadduu riyo arko oo kale riyadaasu ka cabsanaya. culummadu waxyaalo badan ay tilmaamaan. waxaa kamid ah qofka oo riyooyinka uu ku arko abeysooyin badan oo kale ama bahalo, qofka oo riyooyinka uu ku arko. waxaa kamid ah laysinimo, maaragta qofka oo caajis ma rabo inuu wax qabto. qofka oo jecel kelinimo, dadkao dhan ma rabo, keligiis inuu ahaaduu jecel yahay. calaamadahay kamid tahay. calaamadahaasi oo culummada ay soo ururiyeen, qofka markuu isku arko waxaa culummada ay leeyihin qofku waa sixran yahay. marka sixirkaasi qofka noocyo badan noqon karaa. ama gurigiisa sixir lagu soo fardhin karaa, ama guriga lagu qarin karaa. marka culummo qaarkooda oo maaragtay waxaa jiro oo takhasus u leh oo dabagal ku sameeyey mawduucan, oo in lala tashtay ay tahay mararka qaarkooda qaabka guryaha loogu soo saaro. laakiin culummada waxay dhaheen haddii ilaahay isku xirto, hadda waxaan u dhaadhacayaa marka hore waxaan u dhaadhacayaa intaan dawada aadin waxaan u dhaadhacayaa qofka markuu dareemo inuu sixran yahay, waxaa xaaraan ah inuu u tago sixroolo kale suu sixirka u furfuro. waayo daayati waxaan ka hadlaynay in sixroolo loo tago inay xaaraam tahay, in su-aal la weydiiya, su-aal keliya aada weydiinaysid 40 maalmood salaadaada inaan la aqbalaynin, tegitaanka oo keliya. marka haddaad u tegaysid ka waran nafci ahaan, nafci maxaa waay? waxa sixiraa aan dareemay inuu ahayo, marka waxaan rabaa sixiroolaha inuu sixirkan iga furfuro. ma banaanta? taasna ma banaan. sababta dhakhtar kastaa loo tegayaa in dawo laga soo qaato? maya. sababta ninkan dhakhtar maaha. kowta labaadna qofkaa u tegaysid waxa uu u shaqeeyaa shaytaan. maaragta shaydaankia waxaan soo baray, shaydaankia uu ka amar qaataa, shaydaanka wuxuu sameeya dhahuu sameeyaa, adeeg wuxuu kugu daweynaya marka wax shaytaan la xiriira waa. marka riwaayada rasuulku uu yiri alayhi salaam, xadiis kalaa jira rasuulka marka shay sixir ah la weydiiyey yaa nabigu wuxuu yiri annahu min camali shaytaan, shaydaan shaqadiisa wuxuu shaydaan uu qabtay ayaa qofka u isticmaalaya inuu qof kale ku dhaawaco maskaxdiisa ama indhihiisa. idan marka yaan loo tegin, marka intaan dawada yaan loo tegin qof saaxir ah ama caraaf ah yaan loo tegin.
oo yaa u tegaysaa marka sheekh ma u tegi kartaa sheekh waa u tegi kartaa waxa u tegi kartaa sheekh laba reason ko hadduu kaa kaalmeyn karo inuu kula ogaado waxaan sixir miyaa mise marka qaarkood sixirka iyo jinni hadduu oo jirkaaga uu galoo kale oo darsi kale ah way isku eg yihiin almas ayaa la yidhahdaa marka jinni jirkaaga uu taabto ama uu galo oo kale marka oo markaas jinniga dhaawac jirkaaga u gaarsiinayo madax xanuun kugu ridaayo hurdo la-aan kugu ridaayo mise qaar culamada qaar xitaa waxay dhahayaan qofka hurduu jecel yahay hurdadu jeclaanaya cagsi uu noqonaya waa nooc min asixir ay dhaheen calaa kulli xaal qofka sheekh baa u tegi karaa laba sabab kow inuu sheekha uu ka kaalmayo inuu ogaado waxaan ma sixir baa mise il waaye mise jinni waa almas mise waa xasad iyo wixii lamid ah qofka sheekha uu ka kaalmeyn karaa marka hadduu ka kaalmeyn karin sheekh kale uu u dirayaa markaasi ama sheekha inuu baaris sameeyo oo su-aalo u weydiiyo qofka maxaa aragtaa maxaa dareentaa habeenkariya ma aragtaa ma dhidida inta badan su-aalo badan markuu weydiiyo markaasaa jawaabtu kasoo saari kara sida dhakhtarka oo kale dhakhtar markaa u tagto su-aalo badan uu ku weydiina suu ku ogaado cudurka inuu ku hayo oo kale cudur waayo xanuunkan marka intaasi waxaa kaloo reasonka labaad ah sheekh ugu tegaysid ama imaam a ugu tegaysid waxaa waaye inuu kuu tilmaamo dawada ama asigaba inuu kugu tufo asaga inuu kugu tufo waxaa daliil u ah macalinka rasuulka alay slam oo jibriil ahaa wuu ku tufay nabiga calay salatu wasalaam markii nabiga oo xanuunkaas ku dhacay jibriil wuxuu dhahay bismi illaahi arqiika magaca ilaahan kugu tufay min kulli shayin yu'diika min kulli shayin wax walba oo ku dhibayo wa min shari xaasidin wa caynin allahu yashfiika intaas waa ducada marka bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika wa min shari xaasidin wa caynin allahu yashfiika shantaas qaybood waa oo micnaheedu waa maxay magaca ilaahan kugu tufay marka bismi illahi waa la isku tufaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa hayo wax walboo ku dhibaayo oo markaasi si gooni haddana wuxuu u tilmaa wax walboo ku dhibaayo waa min shari xaasidin sixirka badana dadka sameeya waa xaasidiin kan xaasidkaa shartiisa ama sixir ha wata ama wax kale kugu sameeya iyo cayn iyo il kasto beri nabigii calay salaam ayaa macalinkiisii sheekhiisii wuxuu ugu duceynaya ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ilaaliyo in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka ilaaliyo wax walboo dhibayo xaasidku ka mid yahay makhluuqaadka aan la arkaynin wax dhibayo uu ka mid yahay sixirku waa makhluuqaad ah oo maaragtay qofaa sameeyey laakiin qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala abuurtay isla markaasna isha iyo ilaahay subxaana wa tacaala keliya in la weydiisanayo oo saaxir aan loo tegaynin oo kaahin aan loo tegaynin allahu yashfiika halkaasi waa daliil intaas kadib taas marka waa ducooyinka duco ka mid a marka sheekhaa saddexda sababa ugu tegaysaa kow inuu kula ogaado waxaan sixir maya mise sixir ma aha hadduu ogaan karo laba inuu markuu ogaado kadib inuu ku tilmaamo dawadi saddex hadduu ku tufi karo oo dadka ruqyada sameeya uu yahay inuu ku tufo lacag ma ku qaaban karaa haa wuu ku qaaban karaa sababtoo ah xadiiskii oo aan soo qaadanay suuratulfaatixa ayaan ku ogaanay ninkii bahalka qaniinay saxaabigii qur-aanka ku akhriyey wuxuu ku qaatay ijaar ama ujru ku qaatay ujradaasna rasuulka wuxuu dhahay iga qeybgeli oo nabiga calay salaam wax xalaal ah waxaan ujeeda wax xaraam ah cidna uma ogolaado marka wuxuu caddeeyey inay xalaal yihiin wuxuuna ogolaaday xitaa in la qaybsan karo macnaha laba qof saddex qof inay ku tufi karaan oo lacagtay wada qaybsan karaan lacag waa lagu qaadan karaa haddii qofkaasi oo tacaddi uusan sameynin xadgudub uusan sameynin dadka qaarkood dadkay ku tufaan markay haween ku tufaan haweenku way ku xadgudbaan xadgudubkaas hadduusan sameynin xadgudub waxaan ujeeda xadgud taabasho waa xadgudub inuusan taaban karin iyo xadgudubka wixii kaloo xadgudub ah oo ka mid ah maalan gabar waxaan arkay oo ooynaysa maalin maxaa dhacay lacagta iga dhamaatay dhahda
bil walba 500 ay bixisaa waxay tagtaa meel la isku daweeyo oo dad wadaada ah wax ku daweynayo marka waxay leedahay lacagtii ay ga dhamaatay markaasaan waxaan dhahay imow masaajidka lacag la-aan anaga kugu daweynayna qur-aan kugu akhrinayn marka waxaan ula jeedaa in lacag lagu qaato way banaan tahay laakiin lacag xad dhaaf ah oo dadka duruufahooda xanuunka ah laga faa'iidaysto taasna ma banaana maxaa dawo ah marka waa soo gabagabeynaya waxaa dawo ah dadka maanta waxaan rabaa inaan u sheego wax sahlan sixirkan oo dhan oo dadka ay ka cararaan horta lagama cabsado sixirka ilaaha laga cabsadaa maxaa dhacay wamaa hum bidaariina bih sixirkaasi kuwa wax sixroolayaasha ah wax ay ku dhibi karaan ma lahan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idmay maahayn halkaa maxaa ku ogaatay marka cid awood leh oo ku dhibi karto ma laha ilaahay inuu idmo maahayn marka ilaahaas hoosgal marka waxaan rabaa dadka wax ay xusuusan karaan u sheega nin sheekh oo caalim ah sheekh maxamed abu raatib annaabulsi wuxuu dhahay sixirkoo dhanba waxaa lagu daweyn karaa ama adiga haddaa qur-aanka taqaana adaas daweyn karo intuu sheegay sheekhaasaan wax ku darayaa oo keliya sheekha wuxuu sheegay kow suurat alfaatixa qofki inuu akriyo laba saddex aayadaha ugu horey shanta aayad ugu horeysa suurat albaqara saddex aayatulkursi iyo labada aayad oo ku xigto afar saddex walilahi ma fi samaawaat saddexda aayad ugu dambaysa suurat albaqara shan qul wallah saddex jeer lix qul acuudu birabbi lfalaq saddex jeer toddoba qul acuudu birabbi nnaas saddex jeer sheekha intaasuu sheegay culumo marka intaasaan sii faahfaahinaya nin sheekh kale oo caalim ah wuxuu ku dardaarmay waxaa u timid gabaraa u timid gabadhaasi waxay u sheegtay iyada iyo ninkeeda 10 sano ku dhowaad inay isqabaan wax uur ah way qaadi weyse wuxuu dhahay dhakhtar ma aadeen waxay dhaheen dhakhaatiirtii warqadahoodii waa kuwa ninkan wuxuu leeyahay wuu dhali karaa iyadana haweentii way dhali kartaa labadoodii khalaas wuxuu weydiiyey su-aalihii waxay soo saartay inay sixiran tahay wuxuu yidhi waa sixiran tahay weli dhankeeda waay u dhahay ninka calaamadii ninkii iskuma arkin iyadaa isku aragtay waa sixiran tahay dadaa diidan oo kaa hortaagan oo ku sixray inaad ilmo yeelato maxaa tala ah qur-aanka ee taqaanay akhriskiisii wuxuu yidhi maalin kasta suuratulbaqara dhamee soo qaada kitaabka acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim dalika alkitaabu laa rayba fiih suuraddoo dhan dhamee wad uu dhahay ugu yaraan 3 maalmood ilaa jirkaagu ka soo baxo sixirka lagu cabsiiyey sixir la cunsiiyey ama la cabsiiyey waa maalintkooday dhamaysay qur-aankii suurat albaqara raalli ahaad maalinta labaad suurat albaqara ay dhamaysay maalin saddexaad markay dhamaysay suuradda markay dhamaysay sadaqa allahu alcadiim ay dhahaysay waa la qabtay way soo mantagtay waxaa ka soo baxay wax madow oo qurun ah oo uray markuu ka soo baxay oo iyadii ninkeedii ay iskaashadeen ay isnadiifiseen waxaa dhacday markaas kadib waxaa kasoo wareegitay oo keliya waxay dhahday haa markii bahalka wixii xumaa oo uraayay oo madoobaa ay soo matagtay waxaa dhacday nashaadkii nolosha kusoo noqotay oo caadiga ah madax xanuun ma jiro kor xanuun ma jiro hurdo la-aan ma jiro wax alle wixii calaamad sixirka o dhan waa wada tegay dhah ninkeeda iyada waa wada kulmi jireen bil kadib uuray qaaday marka waxaan ku darayaa oo culummo qaarkooda aan ka akhriyey faatixada 7 jeer akhri inkastoo sheekh caalima bakistani uu dhahay tiro kastoo kisi ah way fiican tahay laakiin qur-aanka maadaama 7 min almathani 7 oo baraka ah qur-aanka lagu xusay marka culummada qaarkood waxay leeyihiin 7 jeer akhri suurat alfaatixa suurat albaqara haddaa wada akhrin karto sida sheekhaas oo kale hadda aan idiin sheega oo kale akhriya waxaa kaloo sheekh kaloo caalim bakistan isagana wuxuu dhahay 41 deer oo isku xigta oo suurat alfaatixa aa isku akhrisid ama lagu akhriyo qofka masxuurka ah maxaa kale ducaa u shifaa
ruqya jirto ducada ruqyada ducadana ka mid ah ducadii haddaayt aan idiin akhrinaayay oo duco koobana bismi illaahi arqiika qofkii oo sheekha ahaa ama qofkii asaa isku akhrinayo anaa wuxuu dhihi karaa bismi illaahi arqii uu dhihi karaa linafsi anaa isku tufaayo naftiga min kulli shayin yu'diika saasaad ku leedahay qofkii wax walboo ku dhibaayo oo min shari xaasidin sharka xaasidka saaxibka ka imaanayo waa caynin hadday il tahay ishaasi allahu yashfiika ilaahay subxana wa taala ku shaafiya culamo qaarkood waxay dhaheen waxaa la akriyaa ducadan oo lagu tufaa qofkii markii oo maaragtay qur-aanka intiisa kale lasoo dhameeyo waxaa kaloo jirta culammada dhaheen 3 shay haddii lagu tufo qofkii uu ku reysanayaa kow haddaa heli karta biyo zamzam ah haddaadan heli karin 2 biyo kasto oo lagu tufo intii qur-aan hadda aan sheegayo kadib qofkii inuu ku qubaysto uuna cabo si ay u soo baxaan wixii dhibayo oo jirkiisa ku jiro 3 alcasal waa malabka waa qofka haddii malabka uu ku tufo intii hadda aan soo akri oo kadibna uu cabo ilaahay subxana wataala uu ka soo saarayaa sixirka dawadiis way sahlantahay wax laga cabsada maaha ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku daro sixirka waxaa kaloo dawo ah sadaqada qofka sadaqa bixiya oo u niyeysta sadaqadaas laakiin beer qur-aanka fi suurati leyl ilahi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walleyli idaa yakhsha wannahaari idaa tajala wamaa khalaqa dakara waluntha ina sacyakum lashataa فأما من أعطى قفكي بحية وصدق بالحسنى هل كان يقينك وسرع قفكي صدق وبحصده سبب أو يقين صده وسنيسره لليسرى ولو سهل يا وتفسير وعلماء قاعدة مفسران ولو سهل يا وحو وبحصده صدقه إنه حلا صدقه وبحصه إن إلهي سحر وكاقاض عدان وآه جبر أو شيخات أو محاضرة جيدانيسو waxay ururinaysa lacag dacwada lagu kaalmeynayo hooyaa u timid waxay dhahday ani wax ma haysto silsiladaan aan bixinaya silsiladii bixisay macnaa necklace u ahaa kuushii bixisay qofkii oo sheekhada ahayd kuushii way qaaday oo dahabka ahayd waxay geysay meesha dahabka lagu gado ninkii intuu miisaamayay kuusha meel yar wuxuu ka helay warqad yar oo aad u duuduuban oo meesha ku xiran wuxuu dhahay kuushaan waxbaa ku jirta wuxuu yidhi maxaa waay itusi sheekhadii markay aragtay waxay aragtay warqad aad u yaroo meesha ku duuban way furtay warqadii sii furfurtay xoogaa way weynaatay waxaaba ku qoran waxyaalo oo jinni ah waxay dhahday warqadan sixir warqadan sixir waa qofka nasiib badana sadaqada ay sadaqaysatay kuushaan oo dahabka ah waxay sabab u noqotay markaasay gubtay marka wayna u ducaysay qofkaasi sadaqadaasa waxay badbaadisay qofkii maalin kale ku noqotay bil kadib oo mareyna muxaadaro ay ku noqotay magaaladii markii muxaadarada dhamaysay qofkii haweentii u timid oo dhaldhalaalaysa oo faraxsan waxay dhahday may garanaysaa waxay dhahdaa ku xusuustaa haweentii kuusha soo matiid haa oo dhahaysay wax kala ma haysto haa markaas waxay tiri waa faraxsanahay haween sheekhadii waxay tiri maxaad la faraxsanta waxay tiri waxaan ku faraxsanahay markaad iga tagtay maalmo kadib fiiriya maalmaha kadib waa maalmihii oo kuusha ay geysay meesha maalmo kadib mucjisaa dhaca maxaa mucjisa waxay dhahday aniga iyo ninkii muddo dheer aan isqabnay oo sanweyn ah inuu itaabtana waa diiday muuqaalkiisana waa dhibayaa wuuna iisoo urayay xanuunkaas iyo dhibkaasaan ku nooleen qolka inuu ila soo seexdana ma jeclaysan dadka waxaan inay ogaadaanna ma rabin marka waa qarsanayn isagana wuu igu sabray anna waxaan ilanihi waa ku dhibsanaa ma ku arki karo kow isla markaas wuxuu leeyahay waxay leedahay muuqaalkaaga xitaa wuu isbedelay ilan waa la sixray haweentaa la sixray waxaana qof xaasid oo ninkaas aan la rabin wuxuu u geliyay sixir kuushaasi maxaa dhacday markaasi sadaqadii ay bixisay waxay u niyeysatay waxay dhahday waa xanuunsanaa waxaan u niyeystay ilaahay xanuunkaas inuu ilaahay iga qaado maalinta iga tagtay 2 maalin kadib waa markii meesha ay geysay
waxay dhahday anoo dhan waa isbedelay waxaa noqday qof binaadana caadi ah waxaa yaab badan oon kugu bashaareynaya dhahday ninkii oo dhan wuxuu ila noqday ninkii quruxsanaa waxaa kaloo kasii yaab badan caraf waa rabaa inaan haysto maalintoo dhan isagana wuu raaxaysto wuu nastay haddana waxay dhahday khayraa soo socda intaasi waa iyadana dawooyinkay ka mid tahay sadaqada waa la isku daweeyaa inkastoo rasuulku yiri xadiis daawu mardaakum bisadaqa ku daweeya dadkiina xanuunsan sadaqada taas ayaa nagu filan daliil ah sadaqada inay dawo u tahay nooc kastoo xanuun ah marar kale ka sheekeyn doonaa aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin fasaxayaa 5 daqiiqo oo su'aal ah muted. ما شاء الله تبارك الله. ذكر ما كنت طوري. شيخ ما ياخذ دقيقة ترى. 5 دقيقة. 5 دقيقة ترى. أنا شيخ ممكن كتاب واحدة ممكن كتابنا ما شاء الله. أوكي. سويتين قرن عن فرح. أوكي هل كبر 5 دقيقة تستحقوا كل ما يكرناه. تستحقوا بس لأخواتك. صدح دور